warcusub.com waxaa hor fadhiya Cabdullaahi Jaamac Xuseen oo kamid ah xildhibaanada Soomaaliyeed hadda jooga Norway. Cabdullaahi waa gudoomiyaha guddiga ganacsiga iyo warshadeynta ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdullaahi, maadaama Soomaaliya ka timi arrimahan ka socda jubbooyinka iyo gobol sameynta iyo baarlamaanka muxuu ka qabaa arrimahaas, bal warbixin ma naga sii kartaa? saad la socoto dowladda cusub ee Soomaaliya dastuur bay leedahay. dastuurku waxa weeye ku meel gaar waxaa ku yaala qodob ah federaalka. federaal waa la qaatay laakiin weli lama qeexin cidda federaalka inta xubnood ee dowladaha ka kooban federaalku ma qeexna, xuduudooduna ma qeexna. artikalka 49 ee dastuurka ayaa sheegaya in xuduudaha iyo tirada dowlad goboleedyada uu qeexayo baarlamaanku. arrintaasi lama suubin weli. inta laga suubinayo dastuurku wuxuu kaloo qodobka 142 sheegaya maamuladii hore u jiray dastuurka ku-meelgaarka ka hor in sidoodii hore loola dhaqmayo sida Puntland iyo Galmudug. gobolada cusub oo samaysmaya waxaa horseedaya inay samayso dowladda Soomaaliyeed, xukuumadda horseedaysa. xukuumaddu markii hooseedo dadkii baa la isku geynayaa, nidaamkii baa la diyaarinayaa, sharcigii gobolada oo aan hadda diyaar ahayn baa baarlamaanka inta la soo marsiinaya la sugayaa, dhulkaa la xasilinayaa, markaasaa doorasho la gelaya iyadoo la yaqaano tirada dowlad goboleedyada, xuduudooda oo baarlamaanka la soo mariyay iyo qaabka loo sameynayo dowlad goboleedyada. markaan haddeera ciddii ku booda oo tiraahda annagaa sameynayna dowlad goboleed waxaa ku soo baxaysa xujo ah: kow, xukuumaddu muwaafaqsanta; labo, baarlamaankii ma ansixiyey; shuruuc ma loo haystaa in loo sameeyo. intaas hadday meesha ka maqan tahay dowlad goboleedkii la sameeyaa sharci noqon maayo. intaa keliya ayaa loo baahan yahay in la qeexo oo la fahmo. wax aan bislayn, cunto aan bislayn ma la cunaa. waa in la bisleeyaa oo la diyaariyaa oo la isku raacaa. taas kaliya ayaa shaqayn karaysa. lama diidana in dalka laga dhigo dal furfuran oo aan xukuumad dhexe ee urursan ee centralized waxa loo yiraahdo ah inaysan noqon. federaal waa la qaatay mabdi'iyan, lama qeexin federaalka nooca uu noqonayo, lama qeexin. lama yaqaano awoodda dowladda dhexe iyo tan dowlad goboleedoo qaybsanayaan, qaabkay u wada shaqaynayaan, sida khayraadka loo qaybsanayo, sida awoodaha kale dowladda loo qaybsanayo. waxaasoo dhan waa majhuul. inta taas laga ogaanayo uma baahna in qardajeex la sameeyo oo khilaaf iyo dhibaato wax lagu dhiso. waxaa loo baahan yahay in dhabaha sharcigaa la maro. dhabaha sharciga muxuu yahay? dhabaha sharciga waxa weeye dastuurka noo yaala. asaga haddii qodobo laga bedelayo baarlamaanku inuu isku raacaa loo baahan yahay. haddii kale waxa ku qoran in la isku raaco oo baarlamaanka la marsiiyo oo baarlamaanku sharciyeeyo. xukuumadda iyo baarlamaan iyo shacab saasaa loo wada shaqayn karaa. dadka ku mashquulsan sameynta Jubbaland maxaad fartiina u dirleed? Jubbaland iyo maamulada kala samaysmayaba dhabaha aniga aan sheegay ayay ku habboon tahay in loo maro dowlad sameyntooda. dhabihii kaas ka duwani wuxuu abuurayaa khilaafna cidi ka macaashin mayso. cid ka macaashaysa ma jirto. Soomaaliya maanta khilaaf uma baahan. adigoo soo koobaya dhabaha ma noo sheegi kartaa hal mar? dhabuhu waxa weeyaan xukuumaddu inay keento barnaamijkii gobolada lagu dhisi lahaa, sharcigii inay soo marayso baarlamaanka, sharcigaas in la baasgareeyo, qaanuunkaas iyadoo la xigsanayay in gobolada lagu dhiso qaanuunkaas doorasho lagu sameeyo, baarlamaanka in loo keeno qaabkii iyo xuduudihii iyo tiradii inuu go-aan ka gaaro goboladu ay noqon lahaayeen, awoodihii in la qaybiyo, dowlad goboleedkaas la dhisay in baarlamaanka laga ictiraafo, xukuumadda iyo dowlad goboleedyaduna nidaamkaas inay ku wada shaqeeyaan. kaas way dhabaha sharciga.
marka waxaa leedahay dadka hadda ku mashquulsan maamul samaynta iyo gobol samaynta iyo maarata kabaha haysa iska dhameen iyagoo aan soo marin baarlamaanka kama gaari karaan wax guul ah maxaa yeelay wixii dhabbihii sharciga ahaa looma marin khilaaf bay ku dhasheen waa hala iska qabsado faa'iido male taas ma laga yaabaa inay jiraan dad intaas ka rababa aniga u malayn maayo laakiin gacno kale oo shisheeyaa ku jira meesha dowlada ayaa soomaaliya dana ka leh danahaas dowladuhu ka leeyihiinna waxaa laga yaabaa inay gobollo iyo qabaa'ilka soomaalida iyo ay soo dhex galaan siyaasad noocaasa in meesha lasoo dhexgeliyo siyaasaddaasina mid hadda faa'iido laga gaarayo maaha mid ummadda soomaaliyeed iyo ku habboonna maaha dadka dadwada walaala soomaalidu waa qoys weeye in hadda qabiilla loo kala safo oo hadda gurbaan qabiil laga garaacaana baarlamentarianka dadka ah ee xildhibaanadana kuma habboona shacabkana kuma habboona in arrintaa lasii qaadqaado midnimo in laga shaqeeyo weeye wixii ummaddu ku heshiin lahayd in laga shaqeeyo weeye federaal in la noqdo shacabka soomaaliyeed ayay ka go'daa oo ugu dambeynta ansixin doona baarlamaanka ayay ka go'daa inuu isku raaco qaabka iyo nidaamka dariishada guriga in laga soo galo maaha waa in albaabka laga soo galo